السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قالقة وإذن سلامة دمانتين ميل والبو joogtiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada fadlan hadda igu cusub tahay subscribe-ka hayga ilmaamin haddii aa hore iila joogto waxaan ku leeyahay waa mahadsantaa sida quruxda badan aa iila socotid leegta subscribe-ka gambaleelka dhagsiisa aa ila socotid wax walba oon soo geliyo bartayda youtube ee soomaalida madow waa idin salaamaya dhammaantiin meel walba joogtiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta gabar soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay dalka Belgium gabar Soomaaliyeed waxaana dilay wiil Soomaaliyeed aa dilay sida la sheegay waxa u dilaa leeyay mobile iPhone maaragtay iPhone 11 Pro telefoonka ay dhaxal soo baxay oo iPhone-kaas u dilay waxa la yiri gabadhii meel telefoonka iibsanaysa macnaha telefoonka deeni ku soo qaadanaysa sida caadiga marka deentaas ay rabtay iska yarayso iska dhiibto tartiib iska dhiibto marka maadaama afkeesi fiican u qaawaysaa la wiil ay taqaanay wacdo oo Soomaaliya xitay abuu kaali caawi waxaan rabaa inaan telefoon soo iibsado lacagtana way ugu yartahay yani waxaan rabaa deen inaan ku soo qaato lacagta qayb dhiibo qaybta kaleetana aan yareeyo marka af ma aqaano kaali caawi wiilkii uu u yimid isla markii markuu u yimid meeshii wada galeen telefoonkii soo qaatay programkii wixii dhamay buuxisay oo laga rabay information inay buuxisay telefoonkii soo qaadatay marka waxa la yiri gabadha markay telefoonka soo qaatay banaanka u soo baxeen soo raacay banaanka u soo baxeen banaanka soo aadeen gaariga wata wiilka la gaariga u galay gaariga markuu galay wuxuu yiri abaa gaariga soo raac markuu dhahay way soo wareegsanaysa marka gaariga soo wareeg soo galay isleeyay albaabka kaleeto gaariga oo jug ku siiyo gadaal u dhacday gadaal markay u dhacdana gaariga oo dadasiyaa subhanallah la hawla wala quwwata illa billah gaariga oo dadasiyaa buf gaariga gabadhi saas markay u dhacday gaarigii uu sii marsiiyo si fiican u sii dadarsiiyay telefoonkii uu ka qaatay horan waa uga sii socday uu ka cararay yani inuu baxsado isku day marka gabadha waxaa lagu yiri tahriib wadanka ku soo gashay Liibiya soo martay saxarihi Liibiya waxay soo martay Suudaanista ogeedeen waxay soo martay Liibiya iyo badii soo martay yani intaas waxay raadinaysaa nolol iyo amni inay hesho maadaama wadankiiya wadan amni fiican ka jirin waxay isleeyay ama amni fiican heshaa meel aw amni ka hesho raadsi isleeyay ma fahmaysaa okay marka intaas oo dhibaato ay soo martay intaas oo rafaad sameeyay maanta waxay sababsatay oo gacanteedii ku dilay wiil Soomaaliyeed ayaa gacanteedii ku dilay wadankii ka soo tagtay dhulka aragtay soo martay saxaray soo martay badii soo martay Talyaaniga soo martay rafaad dheer ka bacdi Belgium ay soo gashay maanta waxa ku dilay Belgiumkii wiil Soomaaliyeed ayaa nafsadeedii u dhaafiyay calashaan telefoon maxaa la hada sida la sheegay gadaal wixii dambe ka soo cadaa doona lama yaqaan insha Allah idin la soo socodsi doona wixii dambe gadaal ka soo baxo laakiin hadda wargeysyada iyo dadku waxay soo dhacmanayaan inuu telefoon u dilay telefoon li ajli telefoon iPhone ah uu gadan karo iPhone uu gadan karo waxa la isku dila ma telefoon yar oo iPhone Soomaaliya lama joogo meesha oo telefoonada la isku dila okay telefoon yar oo iPhone markuu ku dilo qof yani naftiisa dad u dhaafiyay oo maanta walaaltinimo maciin baday oo Soomaalinimo maciin baday oo istiraha ku caawiyo hebel asaga Soomaaliya oo afkii yaqaanay caawinaad baday ka waran maanta nafsadiisa dhaafiyay على الحمى أنت لا كبر ولا سو عقدت على الحمى معهن عيل صمهن يا هاكو دلنين على معين بدمانته أو صومالي نما إسرائيل نما على معين بدي محي هي تتكال ولا يعاوي تلفون كحون كعدين كعكوس قاعدته هاكو جدي لبالكورما قبل وعمد ويدي ما تنفط له كلام يدعن بوليس كقاضي السجن ولا جرات جوجا على ده مركو حالي وقع لأنك لو جش كيا إنه كسر دي وهو عيالي قبل كله gabadhi kale wuxuu ku dhahay heblaayo meesha seetaalay in dhimatay kala soo fiir way dhimatay maleynay telefoonkan ana ka soo qaatay yani subhanallah xumaan walba amba naf walba gooysid waxa la laba qof hadii qof isla dilaan qof ha sheego Soomaalida si tirada hadii qofkaas qof kaligiis dilan shaydaanka sheego ma fahlaysin yani aniga oo kaliga gurigaan tagan maanta hadii qof dilo guriga dhexdiisa ku dilo qof ayda iyo qof ila joogin shaydaanka ku sheego waa laazim kii loo gadaa laga wadaa macnaha ma fahmaysin لازم هو الجوجانا هدي على بقف أنا جو أقف كسر بقف كل دلني قف كي كلا بقف قف كمية الشيء لازم اللي وقع هذا سومالي حتى رجالي ما خلصان تتر هذا مركا والله عادي هذا عقنا حمسكينته عادي آدم أقول ولا عادي آدم أقول مرجوده قبل مسكين الصومالية ما أنت إن اللي قال لي تلفن أقولي متو اللي قال لي تلفن دير نوصق هذا وحتى لعكتي يقولي لي دي بن إني ما أنت أقولي متو ولي بس أبص طويل الصومالية قاري يسكدله محو كدله تلفن والله بلا وامرجو إن عدين وده مرسن وجوجا وشقي سنكرا دينتي أيدو قاعدة كرا وحول بقف سكرا يعني تلفن قيمة ما بلهم
تليفون واحد قف نفضل لوجويو ما بقى هم بولا ليا تليفون ما حقف لوجو دي يا قدرتي سب تليفون تاع واسكا سو قدن كرتid وحتى داو انتين كسو قاده كرتid maadaama wada horumarsan joogto maanta Afrika joogin oo Soomaaliya joogin Soomaaliya taleefon cash to cash waay deen kama shaqeeyo يعني wada waxa joogto horumarsan oo wax laga goynayo bishii wax ku tashanaysa qaadanaysid amba ceer ku noqoto amba shaqeysatid okay maxaa marka gadan oo kugu jirtina gabar walaasha taleefon xun oo niica yaa wuxuu yahay jirin oo maxay ta lacag yar joogo ina qof naf bil aadan aa u goysad ka waran yaa gabadhaas waxaan leeyahay ilaahay ha ku naxariisto ilaahay qabriga ha ku waasiciyo ilaahay su'aasha aakhira ha ku fududeeyo ilaahayna waxaan ka baryayaa ninkaas gabadhaas miskiinta dhibaateeyay ee maanta nafsadeeda dhaafay inuu ilaahay soo qabto insha Allah ta'ala ciidamada waxa la weeraadinayaan wargeysada email walba lagu soo qoray meel walba sawirkeeda yaala aniga sawirkeeda shaashada idin soo saari doona insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay su'aasha ha u fududeeyo kolay geerida hadda way dhaaftay xanuunkeedii anaga ugu hartay ayada way dhaaftay adduunka maanta isaga tagto waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dambi dhaafo dambigaaga adduunyo iyo midkii hore iyo midkii dambe saaxiibadayda ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa gabadhaas inaan u duceyno wixii kale oo kusoo kordho oo akhbaar ahna waa idinla soo socodsii doonaa insha allahu tacaala wax walba cusub janaalkayga haddii ilaah yidhahdo waa kala socon doontaan wax kasta oo dunida soomaalida dhexdeeda kusoo biro waa idinla soo gudbi doona idin soo gudbisii doonaa insha allahu tacaala haddaa igu cusubtaa fadlan subscribe-ka ha iga hilmaamin adigoo mahadsan insha allahu tacaala waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu